sidee ayay ku dhacday dharbaaxadii alfanaan Zayn Malik u geystay soo dohdii in diinta islaamka loo aflagaadeeyo macquul ma tahay Gigi Hadid ninkeeda inay ka dooratay nabaradii hooyadeedu u geystay nin gacan qaaday hooyada ma u noqon lahayd xaaskiisa maxaa ka jira jirdilka aadka u daran ee Yolanda Hadid u geystay alfanaan Zayn Malik maxay tahay sababta dadka islaamka ah qaladaadkooda loo bomboniyo halka kuwa kristamka la dado oo ceebahooda la qariyo halkee ayuu ka bilaabmay isku dhaca Yolanda iyo alfanaan Zayn Malik si aad wax uga ogaataa arrimahaas dhamayso muuqaalka waanad ku mahadsantihiin sidaad markasta ugu xidhantiin YouTube-keena Baldahab TV fadlan la garee muuqaalka si uu helo daawasho badan subscribe haddii aad nagu cusub tahay lana wadaag asxaabtaada haddii ay macquul tahay fanaanka aadka loo jecel yahay Zayn Malik wuxuu ku soo biray saxadiisa Fred markii uu ahaa 17 jir oo quriya markaas uu ka soo muuqday goob lagu tijaabinayo fanaaniinta ka hor inta aan fanaan loo aqoonsan muddo kadibna wuxuu noqday fanaan iyo heesaab buuxa oo ka mid ah kooxdii mucjisada ahayd ee la magac baxday One Direction oo u heesi jirtay qaab group ama koox ah sida kooxda caanka ee ka haysta dalka Korea ee lagu magacaabo BTS halka Gigi Hadid ay tahay modelista caan oo xaysiisa dharka noocyadiisa kala duwan taasoo ah faniga iyo haybada ay ku soo gashay saaxadda caanimo ee adduunka markii ay taariikhdu ahayd 2011 waxay ka qayb qaadatay 3 kambeyn oo lagu qabanayay gudaha magaalada New York waxaana ay gashay kaalmaha ugu sarreeya halka qaar ka midana ay hogaaminaysay oo ay ku jirtay kaalinta koobaad iyadoo durbadiiba loo aqoonsaday xidigadii ay saaris ka soo baxday dhanka modelka iyo dharxaysiinta noqotay faniga iyo haybada ay ku leedahay dhankaas shaqadeeda Zayn Malik iyo Gigi Hadid labadu waxay ku abtirsadaan sida la sheegay qoysas muslimiin ah Zayn waxa dhalay aabba muslim Pakistani oo la yiraahdo Yasir Malik iyo hooyo British Irish ah halka Gigi Hadid uu dhalay Mohammed Hadid oo muslim Falastiini ah iyo Yolanda Hadid oo American Hollandiis ah waana sababta ay ugu milmeen wadamada reer galbeedka maadaama ay hooyooyinkood ka soo jeedaan halkaas intaasna waa hordhaca aqoonsi ee noloshooda hadda waa lamaano waxayna iskursadeen 2015 waana aabbaha iyo hooyada Kaya cunugta quriya ay dhaleen ilaa haddaba arrinka isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay sababta uu jirdilay hooyada dhashay xaaskiisa ee Yolanda Hadid ninka la yiraahdo Zayn Malik iyo sababta ay ilaa hadda ula socoto Gigi Hadid xataa isagoo hooyadeed si xun u jirdilay waana arrinka uga walwalayn bilo ka hor waxa afka furatay Yolanda Hadid oo hooyada dhashay xaaska Zayn Malik iyadoo leh waxa si xun u jirdilay Zayn Malik ninka qabaynantayda arrinkaas ayaa mid la yaab leh kiiskiisana wata markaas Gigi guriga waa ay ka maqnayd waxaana si kadisa ay ugu timi Yolanda waa hooyadeed iyadoo cabanaysa aadna u qaylinaysa Yolanda ayaa ku celcelisay maxkamad la koraysa alfanaan Zayn Malik iyadoo leh waxay ka jiraysaa sharciga dibka uu igu sameeyeen kaliya waxaan kaga arsan karaa anigoo geeyay maxkamadda balse arrinka yaab kale ayaa dadku in ay leeyihiin dhiigga ku jira waa biyo gabadha la yiraahdo Gigi Hadid markasta oo la su'aalo maxaad hooyada uga dhiidhiilaaday ama aad uga xumaan laadahay waxa uu geystay ninkaagu waxay ku jawaabaysaa Gigi Hadid anigu waxaan ahay qof weyn waan garanayaa wixii saxa ugu yaraan waxa muhiim ah inay inantaydu noqonin bilaa aabe taasoo lagu turjubay ninkeeda inay garab siisay hooyadeedna ay iska ilowday oo indhaha ay ka xidhatay wixii uu gaarsiiyay Zayn Malik Gigi waxa kale oo la su'aalay sababta uu dharbaaxay Zayn Malik Yolanda Hadid oo hooyadeeda waxayna tidhi waxay hooyaday faragashatay qoysnimadayada waxay aflagaadaysay Zayn Malik anigu ma ahayn goob jooge markuu dharbaaxay waxaan si ogahay hooyaday inay nacab tahay Zayn Malik waxay tidhi Gigi iyadoo hadalkeeda sii wadata markii ay noo dhalatay Kaya oo cunugteeda waxaan u guurnay California waxaan go'aansanay inaan private ka dhigno noloshaynanteena waxaana faafisay oo shaacisay hooyaday waana sababta nacaybka Zayn iyo hooyaday kor u qaaday muddo kadibna waxa ku soo qoray bartiisa Twitter-ka Zayn Malik waxay si xun uga hadashay inantayda ma aanan rabin inay arrinkaas saxaafaddu ogaato ma jeclay inantayda yar saxaafaddu inay ka dhigato news balse waxa arrinkaa faafisay Yolanda Hadid oo xaaskayga hooyadeed markaan arrinkaa wax ka weydiiyeyna way khilaaftay waana ila dagaalantay muddo kadibna waxa maxkamadda looga yeedhay
dagaalkoodii isku dhacoodii kadib ninka la yidhaahdo Zayn Malik oo lagu eedeynayo kiiska jirdilka ee Yolanda Hadid inkasta uu ka badbaaday xukunka haddana waxaa la soo afjaray inuu waco inuu la xidhiidho iyo sidoo kale inay dhex maraan wax wada hadal labadooda sidoo kale waxaa looga digay Zayn Malik dhib yar haddii uu soo gaadho Yolanda Hadid isaga in loo haysto xataa haddii uu dar Ilaahay u soo gaadhayada arrinkan ayaa walwalgeliyay ninka la yiraahdo Zayn Malik maadaama ay badan yihiin nacabkiisa iyo dadka cadowgiisa si kastana wax u yeeli karaan islaantan markasta oo Gigi Hadid la weydiiyay arrinta jirdilka hooyadeed waxay ku soo koobtaa sheekada mar rabo inantayda kaaya inay noqoto bilaabe arrinkana daruuri uma arkay inaan soo dhex gala anigu sheekadan ayaa lala yaabay in ciwaano looga dhigo in ragga islaamka caadaysteen dilka haweenka iyo inay u gacan qaadaan labadaba waxaana marar badan ay sheegeen waran xanayn habarta Yolanda Hadid ay lacag ku qaadatay sida ay warar falxun uga gudbin lahayd diinta islaamka iyadoo ku eedanaysa ragga islaamka inay jirdilaan dumarkooda dambina u soo jeedisay ninka la yiraahdo Zayn Malik arrintanna waxaa loo maleeyay inay tahay been abuurasho maadaama niyuusyo badan iyo warar badan oo xana laga helay gabadhan haddaba dhalinyaro sidee ayaad u aragtaan arrinta diinta ee la soo dhexgeliyay sheekadan Gigi Hadid ma hooyadeeda ayay garab siin doontaa mise Zayn Malik dhirbaxada islaanta sidee ayaad u aragtaa qalad mise sax igu dhaaf fikirkaaga qaybta commentiska haylaawin adli garaysa muuqaalka subscribe haddii aad cusub tahay waxaadna fursad u haysataa inaad la wadaagto dadka aad jeceshahay inaan kaaga soo diyaarino muuqaalo buuxa oo ka hadlaya arrimahooda iyo waxyaalo kastoo aad jeceshahay aad ayaad u mahadsan tahay